deegaanada dowlad goboleedka Puntland maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo sidoo kale abaabul ciidan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado kaas oo si weyn looga dareemay magaalooyinka Garowe, Gaalkacyo iyo sidoo kale Boosaaso iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ama 48 saac ee lasoo dhaafay magaalada Gaalkacyo la isugu keenay inta badan ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ee ku kala sugnaa magaalooyinka dowlad goboleedka Puntland kuwaas oo bilihii ugu dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sameysay diiwaangelin isla markaana ay u bilowday inay siiso mushaaraadkooda. Haddaba waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada sii xoogeysanaya ee ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado deegaanada Puntland, qorshaha maamulka Puntland iyo sidoo kale siyaasiyiinta durba halkaasi gaaray ee gundhigowa abaabulka ciidan ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado deegaanada Puntland. soo dhaw muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faalada ee commentiga ku dhibaatay hore inoo la joogto ku maasan tahay haddii aad nala joogin nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada aynu markasta halkan kula wadaagno wararkii warbixinada guud ahaan Soomaalida sidoo kale caalamka. Hagaada muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Puntland waxaa ka socday abaabul ciidan oo aad u xooggan oo ay wado dowladda federaalka Soomaaliya taasoo ay ka taageerayeen siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada Puntland ugu horeeya Xasan Shiraab Gaali sidoo kale Gule Saalax iyo saraakiil ciidan oo Siciid Cabdullaahi Dani oo horey xilalka uga qaaday. siyaasiyiinta sida weyn u horboodayay saraakiisha ciidan waxaa ka mid ah Asad Cusmaan Diyaano iyo sidoo kale walaalkiis Maxamed Cusmaan Diyaano, Xasan Shiraab Gaali iyo sidoo kale Gule Saalax. dhammaan shakhsiyaadkaasi waa kuwa sida weyn u horboodaya abaabulka ciidan ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado deegaanada Puntland iyadoo maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo dareemayay dhaqdhaqaaqyo ciidan. magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso waxaa ka soo baxay ciidamo aad u fara badan gaar ahaan ciidamada danab iyo sidoo kale kuwa BSF waxaana ciidamadaasi ay soo gaareen magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhinaca ay Puntland maamusho. sidoo kale magaalada Galdogob waxaa ka soo baxay ciidamo beeleed horey ugu biiray kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo loo diiwaangeliyay inay yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaana dhammaantood ay gaareen magaalada Gaalkacyo qaybta ay Puntland maamusho iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo Donis in magaalada Gaalkacyo ay ku soo bandhigto dholotus ciidan oo xooggan oo ay ku doonayso in cadaadiska Siciid Cabdullaahi Dani ay ku sii xoogiso. Dani ayaa ku fashilmay xakamayntii sidoo kale ka hortagga abaabulka ciidan ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado deegaanada Puntland waxaana dhammaan ciidamadan ay ahaayeen kuwo maamulka Puntland horey u hoostagi jiray. laakiin tani markuu xukunka uu qabtay Siciid Cabdullaahi Dani muddaxileedkiisii labaad ilaa muddaxileedkiisii koowaadba waxa uu si weyn meesha uga saaray saamaynta ciidamadii dowladda Puntland ee ku lahayd deegaanadaasi isagoona gebi ahaanba mushaaraadka ka jirtay qaar ka mid ah ciidamadaasi ugu horeeyaan ciidamada danab iyo sidoo kale kuwa BSF waana ciidamada sida weyn maanta khalkhalka amni uga abuuray Siciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale xukunkiisa. maamulka Puntland horey digniino kala duwan u soo saaray dhammaan waxay ahaayeen kuwo markaasi ciidamadan aysan dheg jala ku siinin. maamulka Puntland ayaa soo saaray awaamiir ay ka mid yihiin in deegaanada Puntland aysan ku safri karin ciidamo aan ahayn kuwa maamulka Puntland gaar ahaan ciidamada u diiwaan gashan dowladda federaalka Soomaaliya oo safka dowladda federaalka ka soo jeeda inaysan isaga kala gudbi karin magaalooyinka Puntland. laakiin gebi ahaanba digniintaasi iyo sidoo kale awaamirtaasi waxaa gaashaanka u daruuray ciidamada BSF iyo sidoo kale ciidamada danab iyo ciidamada deegaanka ee ka soo baxay Galdogob waxaana ciidamadan intooda badan ay isugu yimaadeen magaalada Gaalkacyo. kan uga sokeeya ee ciidankan ayaa soo jaray masaafo gaaraysa ku dhowaad 100 kilomitir halka kuwa kalena ay soo jareen wax ka badan 200 ilaa 300 oo kilomitir. waxaa la soo warinayaa in weli ay jiraan ciidamo kale oo ku soo qulqulaya magaalada Gaalkacyo. gudahaan wixii ka soo kordhay dhaqdhaqaaqan wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faalada ee commentiga ku dhiibo.